kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta halbeega wararka ku soo dhawaada warka warbaahinta qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya Almaas Elman oo lagu toogtay gudaha magaalada Muqdisho iyo faahfaahin toogashadaasi laga helayo warar kala duwan oo ka soo baxaya dagaal culus oo Muqdisho ka dhacay iyo cidda dagaalkaasi abaabushay oo la ogaaday labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulan buuq fara badan u hariyay maxaa ka soo bixi kara kulanka Muqdisho ay ku leeyihiin madaxdii hore dalka iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo villa Soomaaliya oo war xasaasi ah ka soo saartay kulanka Muqdisho kaga soconaya madaxdii hore dalka iyo madaxweyne Farmaajo dibaddana waxaan idin kaga haynaa 106 qof oo lagu dilay gudaha dalka Iran qodobada ayaa daawan doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay abaaraysaa 20 bisha 11 November 2019 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran channelkeena subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkan saaxiibayaal si share gareeya aynu ku bilownay war gordho soo dhacaya waxa uu sheegayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay Almaas Elman oo ahayd gabar uu dhalay Elman Ali Ahmed wararkeena soo gaaraya waxay sheegayaan in toogasho lagu dilay Almaas Elman toogashadana waxay ka dhacday gudaha xarada xalane ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda waxaa la ogeyn cidda ka dambaysa dilkaasi loo geystay Almaas Elman waxaase wararku qaar ay sheegayaan in xabad ay qaybta sare jirkeeda ku dhacday iyadoo ku guda jirtay xarada xalane ee magaalada Muqdisho dhaawac ayaa waxaa loogu qaaday isbitaal ku yaala xarada xalane balse ugu dambeyntii ayaa waxaa la xaqiijiyay inantaasi inay geeriyootay Almaas Elman ayaa waxay hore u ahayd xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya waxaana Almaas Elman ay goordhow ku geeriyootay xarada xalane ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta dhabta ah ee ka dambaysa dilkaasi Almaas ilaa iyo hadda ma jirto faahfaahintaasi dheeraad ah oo laga hayo geerida ku timiday Almaas Elman ee uu dhalay Elman Ali Ahmed oo horay Muqdisho loogu dilay markana isla magaalada Muqdisho hadii aynu ogno waxaa duleedka magaalada Muqdisho ka dhacay dagaal aad u xooggan oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac wararka laga helayo duleedka magaalada Muqdisho gaaran ex control of gooyay waxa ay ku soo waramayaan in halkaasi dagaal xooggan uu ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ayaa waxa uu ahaa mid u dhaxay ciidamada asluubta Soomaaliya iyo kuwa booliis ah oo ilaalinayay dhismaha ka socda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooye ilaa iyo hadda waxaan la ogeyn khasaaraha ka dhashay walow dadkii qaar ay soo weerareen dagaalkaas ku dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac goobjooga ku sugan halka dagaalku ka dhacay waxay sheegayaan in dagaalkaas uu qaatay saacado fara badan ma jirto wax warar ka soo baxaya dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha ammaanka oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho rasaas xoogan ayaa isku rideen ciidamadu waxaana jugta rasaastaasi daryankeeda laga maqlayay xaafado fara badan oo ka tirsan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa wali magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan uga soconaya madaxdii hore dalka Soomaaliya soo martay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo xarunta dalka looga arrimiyo villa Soomaaliya ayaa waxaa si rasmi ah kaga soconaya shir u dhaxeeya madaxdii dalka soo martay iyo madaxweynaha haatan haya talada dalka ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo saxaafadda ayaa kulankaasi waxay tahay mid dib joog ah waana shir albaabad u xiran yihiin waxaana war gordho ka soo baxay villa Soomaaliya lagu sheegay in shirkaasi looga hadli doono kulankaasi weeyaan doorashada lagu wada dalkan ka dhacdo 2021 walow aan lacag waxaana sidoo kale kulankaasi looga hadli doona dhibaatooyinkii kala duwan ay wajaheen madaxdii hore dalka soo martay kadib safarro kala duwan oo ay kala kulmeen carqalado xoogan oo ay doonayeen inay ku tagaan qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya saaxiibayaal kulankaasi wixii ka soo baxay halkan ayaad kala socon doontaan hadii Allah wada la ogolaado magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan buuq fara badan u hariyay waxaana kulankaasi uu ahaa mid ay si wada jir ah u wada lahaayeen labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya waa aqalka sare aqalka hoose ayaa maanta waxa uu kulan ku dhaxmaray gudaha magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxa uu ahaa mid buuq fara badan u hariyay waxaana kulankaasi goobjoog ah labada guddoon ee labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya waa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi
xildhibaanada qaar ayaa waxa ay sheegeen kulankaasi in uu ahaa mid sharciga baalmarsan waxaana kulankaasi looga doodayay miisaaniyadda 2020 ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo horey u soo ansixisay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in mar qorahay labada gole ay hal akhrin wada mari karin xildhibaanada kulankooda ayaa waxa furay labada gole hadal ay jeediyeen ayaan halkaan idinku soo gudbinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa maanta isu imaanshaheena ee gudoomiyaha ka hadlay waxaan isleeyahay inagu Soomaali haddaynu dhaqan ahaan Soomaalidu way istiidi jireen markay istiidaana inta la isu yimaado ayaa arrinta laga wada hadli jiray markaan sidaa leeyahay waxaan ka hadlayaa waqti ayna dawlad jirin laba qabiil oo Soomaali ah dagaalamay dad baa la kala dilay geelna waa la kala qaaday waa la isu yimid oo la tashaday odayaashii meesha yimid nin ka mid ah ayaa warkii gabay ku sheegay warkiisa wuxuu yidhi ninkii aan gob ahaynin wixii gaaray ma sheegto oo runtu gees ka mara waa inaadna gasheen goodiray idin raacday ku godeeyey wajaale gacantaan kugu siiyey halkaa kaaga garaabay ee xaajadii garab tiilay een u geystay naftaadan adna iga garab guurtidii aanu laynay ee godka aakhira jiifta iyo geel yaroo idin hesheen iyo maad golgudeen gabaygaas gabay lagama jawaabayuu yidhi odaygii dhinaca kale ka soo jeeday ee jawaabtu waxa weeye geelii waa celis raggii guurtidii la dilayna magtoodiis waa bixisa ujeeddadaan ka leeyahay waxaan idiin sheegay innagu baarlamaankii Soomaaliyeed baynu nahay laba aqal baynu nahay khilaaf dhacay waynu kala maqnay haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jiraan waxa weeye dalkeenna waxtar u noqon mayno hogaamintiisana ma wadi kare khilaaf baa jiray mudday labada aqal kala maqnaayeen shuruuc baa istaagtay annaga oo guddoonkiina arrintii waxaanu isweydiinay mas-uuliyadda ina saaranay waa maxay mursalow labadeena iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo hadda sheegay in shuruucda ay cadeynayaan baarlamaanka Soomaaliya inuu ka kooban yahay laba aqal arrinta miisaaniyad waa miisaaniyad qaran weeye waa sharciga ugu muhiimsan uu dal samaysto oo saameyn ku leh dalka oo dhan waxa weeye sidoo hadda qodobadii uu sheegay ayaa cadeynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa waa qodob dastuuri kolka baarlamaanka Soomaalidu ma hala qalbi mise waa laba aqal waxaan anagu aan isnay taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhamaatay hadda baarlamaanka dawladda Soomaaliya guud ahaan waa 4 sano dhamaatay war maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doona oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garan waxay noqotay taas markaas qodobo taagnaa oo la isku hayay inaan saxeexno ku heshiino waa baarlamaankii aqalna meel lagaga dhacay ma jiro waxaan codsanayaa
mas-uuliyadda ina saaran ee dalkeenna inaga saaran een arkayno maanta xaaladaha jira wadajirkeenna iyo waxqabadkeenna xalkii buu noqonayaa laakiin hadday noqoto inaan kala taagnaano hadde waxa weeye waajibkii ina saarnaa ma aynaan fulin waxaan codsanayaa xubno golaha shacabka aan maqlayaa ogaada waa sharci waxa aynu inagu ku dhaqannaa ee dalka laynaga sugayaa inaynu samayno aynu dalka u diyaarino mustaqbalka waxa weeye waxa inaga dambeeya baarlamaanka dambe inaga dambeynaya raad ishaysadkeennii muddada siduu guddoomiye u sheegay 3 sano oo dhadhow soo jiitantay inaan intaan ka baxno sanadka inoo haray inagoo wada jira inaynu samayno shuruuc dalkan anfaca baarlamaanka inaga dambeeya ee iman doonaana inuu raad u raaco oo aan la isku qabsan inaan ka tagno arrintu waxaan filayaa guddoomiyaha qodobadii idiin sheegay ee aan raacnay oo ah qodobo dastuuri ah waxaan leeyahay wadajirkeennu iyo wada shaqaynteennu waxay guul u tahay dalka Soomaaliyeed kala maqnaashaheenna iyo iskhilaafkeennuna wuxuu dhib u yahay dalka Soomaaliyeed guud ahaantiisa guud ahaan warkii ka imaanay warbaahinta halbeega waa naga intaas nabadgelyo